xaaladuna waa ay ka sii dartay oo dadkii waa ay ka naxeen markii la sheegay inuu kala barmaqnaan doono xilli ciyaareedka taasna waxaa u sii raacday xanuunkii covid-19 oo la sheegay inuu tababarka ku dhex suuxay waxaana la bilaabay in laga walwalo in sidii walaalkiis uu wadna xanuun ku dhaco laakiin si la yaab leh markay dadku u maleeyeen inuu hoos u dhacay waa taas marka uu Kante ciyaaray xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa noloshiisa markii Frankie Lampard shaqada laga ceyriyay bartamihii sanadkaasi taageerayaasha badankoodu waxay qirsanaayeen in xilli ciyaareedkooda ay u dhamaatay ugu dambeynna kooxdu ay u ciyaari doonto sidii koox iska heerdhexa ah waxa kaliya ay harayna waxay ahaayeen tartamada koobabka laakiin markaas Kante waxa uu go'aansaday inuu ku guuleysto Champions League wuxuu ku bilaabay dadaalkiisa isagoo oo qaatay abaalmarinta ciyaaryahanka kulanka markii ay la ciyaareen Atletico Madrid waxaase wadada u taagnay si ay final u gaaraan Real Madrid labadii kulan ee gurigiisa iyo aweygaba waxa uu noqday xidiga ugu fiican ciyaarta bandhig cajiib ayuuna sameeyay khubaraduna xilligaasi waxay yiraahdeen Kante fi kulli makaan markii uu final ka yimidna mid ka mid ah jariiraduhu waxa ay tiri finalkan waxaa lagu xasuusan doonaa waa maalintii City ay garoonka ku soo daadisay ciyaartoy badan oo qadaxa ah halka Chelsea ay kaga jawaabeen hal bartilmaameed kaasi oo ahaa N'Golo Kante kaligiis oo qadka dhexe buuxiyay waxaa marar badan laga hadlay sida ay suuragal ugu noqotay tababare Tuchel inuu kooxdan kula guuleysto koobka ugu weyn Yurub waliba xilli ciyaareedkoodii ay wareerka ku jireen isaga laftiisa ayaa yiri waxaan rabay Kante inuu ii raaco koox kasta oo aan joogay halkan ayaan se ugu dambeyn ku helay waxaa kaloo la weydiiyay kabtankoodii Sase Azpilicueta ma isleedahay waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka waxaana uu ku jawaabay runtu waa mid fudud wuxuu qabtaa wax walba xitaa wargeysyada waaweyn sida Marca waxay sheegeen inuu mudan yahay Ballon d'Or-ka oo dunida oo dhan waxay u muuqatay inay garab istaagayaan laakiin markaas waxa la aaday Euro 2020 Italy ayaa qaaday koobka waxaana dhacday arrin ay dad badani la yaabeen UEFA waxay bixisay xidiga sanadka waxaana la siiyay saaxiibkiisa Jorginho ka hor dhamaadkii xilli ciyaareedkana Francisco waxay hadana ku guuleysteen Nations League haddii ay tani sii caawin lahayd Kante si uu gaaro Ballon d'Or-kana tartankaasi waa uu ka maqnaa sabab la xiriira COVID-19 Lionel Messi ayaana qaaday Copa Americadiisii ugu horeeyay sidaasna waxa uu ugu guuleystay Ballon d'Or-ka oo rajadii xidigan uu ku qaadi lahaa Ballon d'Or-ku waa ay luntay dad badan ayaa sugayay inay arkaan Kante ma xishoon doonaa haddii Ballon d'Or gacanta laga saaro xilli ciyaareedkiisii guulaha badnaana waxa uu ku soo gabagabeeyay koobkii kooxaha adduunka oo Chelsea markii ugu horeysay ay ku guuleysatay xilli ciyaareedkii xigay bilowgiisina waa uu dhaawacmay oo dhaawac muruqa ayaa soo gaaray wuxuuna sheegay koobkii adduunka iyo inta badan xilli ciyaareedkaasi